da'dayda waa 28 sano jir. Waxaa reer Muqdisho kusoo kornay nolosheeda inta badneed. Muqdisho intaana kasoo teginay oo arrimo badan ka jiray. Waa iska taqaanaa Muqdisho waa meel goob dagaal inta badan. Saasay tahay aad meesha aad degan tahay markasta nolosheeda waa ku qasban tahay inaad ku noolaato haddii dagaal tahay haddii nabad tahaba. Walahi waa isku soo diyaarinay horta waxaa ugu soo talagalay horta sahay oo sahay qaatay. Nairobi horta ay maaday kow waxay dhaqaalahaygana waa saas uma badnay dhaqaale yar iska haysta dhaqaale aad u badan oo saas ma haysan. Nairobi ay maaday waxaan ku fikiray markaan Nairobi maaday waxaan ku fikiray inaan aado tahriib South Africa la dhahayo. Safarkii South Africa waxaa ka tegay Nairobi waxaa tegay meel Mombasa la dhahayo. Marka doona loo raaca doon marka group loo baxaa habeenkaas waxa baxda 40 qof 40 musabiga marka doonta loo raaca musabiga kadib laga sii raaca. Habeenkii kooxda iiga horeysay waxay ahayd 2011 waxay ahayd April 18 Mombasa meel uu la xareeyay 1600 lacag lagu baxay lacagta intaas ahayd lacagtii marka aan haystaa markii doonta la saar laga qaadaa dadkii naga horeeyay doonta laga dootay doonta 40 qof amal ku dhimatay markaas waxa aan gaaray ina waa isku tahriibka waa isku riski inta Afrika u tahriib lahaa dhibaato amar lahaa ina Yurub tahriib aan gaaray Nairobi u laabtay aan niman Soomaaliya waxay dhaheen waxay ugu xirteen qol wiilal Soomaaliya waxa u socdaa wiilal Soomaaliya kala ila balansaneen oo iskool ha jirnay oo meesha jaamacad ka dhigtaan ila balansanaa marka inay soo dhaweeyaan markaas aniga aad u xanuunsanaa waxa u dhacday kaneecada waa weyn kaneecada wax la egtaa gacantaada oo jubbo hadda aragtay kaneecadaas aad waa weynta madaxay iga cuntay anoo dhanba waa dawaqsanahay baan oo dhan 3 maalin waa jirnaa inta soo socday saara waxa ku jira 10 beri qartuum marka qartuum imaaday oo 10 beri jooga dhalinyarada waxay dhaheen wax iska baro fursad haysatay safiirka Soomaaliya xataa ligay gurigiisa wuxuu dhahay hadda wax baranaysid welcome soo dhawo jaamacad waatan waa lagu abaalgareena waa lagu geeyna waxa lagu bara anigana wax barashiyo wax la qoriyo waxaas dhan maba ugu socdaanba Europe wax ay joogtaaba inta ilow waxa taaganahay Europe u socdaaba inta wax barashiyo meeshaas wax ka baran doontaa meeshaas nolosha adduunka meeshaas lagu sheegaba waxa dhacday 10 beri kadib May 28 waxa go'aan gaaray inaan soo tahriib soo baxo saxarihi meesha naarteed lagu sheegay intaas reerkayga lama xiriirin af aan la xiriirin male reerkayga waxa u aadaaba Nairobi u joogaa reerkayga waa marka u dhibanta saxara laakiin marka ku soo deglo xuduudaas waxaana la geeyay nimanka Suudaanka xuduudana geeyay 3 maalin kadib meel xuduudana geeyay meeshayna daadiyeen ay dhaheen idinta la Arab nimanka Liibiyaanka ay imaanayaan annagana waxaan wala soo saaray lacagta ilaa Liibiya la alaal geynaan wala soo saaray Soomaali inta badan lacag ma wataan gaariga wax dhan ani shakhsiyaantayda lacag wataa 3 boqol watay laakiin Soomaalida inta badan ma wataan wax lacagtooda hore lagu soo qadintay saas oo gaarigu nagu dul wareegta oo naga meesha aan kaga tagnaa meed marka meesha la geeyay wax yaala la falfo dad Soomaaliya la facaadiye qof caadiye waxa u dhahay bilka hore dadka meesha looga tagay saan u dhinteen dad on la'aan ku dhinteen dad saasay ku dhinteen adoo dhan waa meesha saxarahana waa qoraxda cirka iyo carrada waa isku dhibiin waxay isku jiraan maraysa waxa ay qabataniyo tahriibkii maantaas markaas waxa dareemay ina nafteeda halis soo galiyay hoobihi inuu qeyr badnaaba dareemay hoobihi inuu roonaa Liibiyaanki markii adiga waa la soo buuqay meeshii qoraxda hadda lagu hayo hadda waa anaga waa iska daalnaba ilaa nafta waa ka samarnaa way naga tageen galabtii noo soo dhaatin waa meel qorax wax la harsado ma leh dhiidka oo ka dhamaada biyo ma cabi kartid waa kuleel wax kale ma cuni kartid waxa wiil meesha nala socday meesha ku dhintay wadnaha istaagay because laga yaabaa qof kasta ama xilligiisa ku ekala wadnaha istaagay yarkaas waa soo baxnay waxaan nimaanay meel la dhahayo marka magafo wuxuu nagu xawilay meel hal dhahay rag joogan ugu xawilay magaalo kale oo Liibiya ka tirsan Liibiya bilowgeed Liibiya markaas waxa ka socda dagaalo waa la duqeymaha ku socday
markaad tagnay sabha waa magaalada tagna waa la yaababa weli ilaa Soomaali ma tagin meeshaas waa niman masaajid salaad tukanay adoonkan maxaa waay adoon ka bax masaajidka adooniyo nimankii masaajid ku tukanay waxaan dhahay waa yaabay waxaa dhahay ruuxan maxaa muslimka la sheegay saamiyaabo nimankii Liibiyaankan maxaa loo dhahaa muslim waska tagay guriga iska laabtay wadada markaa maray inuu yiri Liibiyaan imaanay abid waxa ugu danad basa raacay dadweynaha ani wiil kale geesaha tan la safaristay wax naga cilina ma jiraan laba nin oo weyn tagay safaristay qorsaan u qabteen inay baaranayaan warniyo ya meesha warniyo kan wax naga cishana male wax naga cilina male abid leen walahay maantona waa ku fikirinayo inta afarta bilood Nairobi aad ku fikiray inaan Yurub qaxootiga iska diiwaan galiyay hadda ni waqtiga ugu dheeraadniyo qaxootiga markaa iska diiwaan galiyay UN ka iska diiwaan galiyay wax xasuusta wax saxan ima sheegin laakiin maxaan dhalinyaradii oo kula socotay ninkaas oo ku soo maraa hay ani waa socdaa tariiba socdaa saaxiibada hay dhalinyarada bonus ciyaar jirnay hay ani hadda waa socdaa hadaniyo inta UN wax sugaysid UN dadka igu soo horeeyay weydiiyeen ma qeyb qaadanaysa processka 7 sano ma ani suuq karaabanayo aas ka soo tagay saas ka soo tagay marka halkaas maraa ku fikiraba anoo ku jiray qaxooti ka soo tagay